بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan maanta ka hadli doonaa ama aan dhamaystiri doonaa tenniskii ama example-kii tenniska shanaad oo ah Brazilian Perfect Continuous Tennis. waxaan ku guda jirnaa barnaamijka ama waxaan maraynaa tenniska shanaad. waxaan soo qaadanay tenniska koowaad, tenniska labaad, tenniska saddexaad, tenniska afraad. hadda waxaan ku jirnaa tenniska shanaad. maalinta ugu dambeysay waxaan ka soo hadalnay example yar ayaan qaac ka soo siinay. hadda waxaan gali doonaa example kale oo la socda tenniska shanaad oo ah Brazilian Perfect Continuous Tennis. kahor intaan u guda galin cashirka waxaan rabaa channelku waa channel cusub. haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato channelkani, fadlan ha ka baqiilin, subscribe share-na dhag ku sii, like-na saar si aad u hesho casharo, garaamaro, tennisyo, practice-yo adiga ku xiisi geliya. intaas waa codsi. Okay, example-ka ugu horeeya wuxuuna leeyahay he has played a ball until 2 hours. He has been playing, wuxuu ciyaarayay baa la yidhi. He has been playing, wuxuu ciyaarayay baa la yidhi a ball, kubadda, until 2 hours, ilaa 2 saacadood. Alla he has been playing a ball, wuxuu ciyaarayay kubadda until ilaa 2 hours, 2 saacadood baa la 2 hours maxaa loo dhahay macnaha hijka s loo oo art s loogu daray ama hours loo dhahay ma hour loo dhiiwa sababtoo ah 2 waa jamcan bular waa 1 laakiin daa loo calila 1 hour alila laakiin 2 hours waxaa loo dhahay 2 waa 2 saacadood allah marka jamc waa marka wuxuu leeyahay he has been playing a ball until 2 hours. wuxuu ciyaarayay kubadda baa la yiri until 2 hours ilaa 2 saacadood. Okay, aan ka dhigno su'aal. waxaan dhahay marka su'aal laga dhigayo adoo iswereerin waxna aan ka bedelin auxiliary uu leeyahay subjectigaas le banaanka gay. waa auxiliary maxaa way has waa oo maxaa la marka has he been playing a ball until 2 hours. oo waxaan soo sheegnay been iyo hasta dhaxdooda waa inuu galaa subject waa inuu galaa markuu yahay su'aal markuu yahay waa ma dhihi kari has been he ma dhihi kari ilaa waa qalad. waxaa loo baahan yahay auxiliary has iyo beenta dhexdooda waa inuu galaa subject waa inuu galaa oo loo dhahaa has he been waa in la lahaa taasaa sax ah marka laakiin sax ma ahan has been he ma la dhihi karo not qalad waa marka waa inaan dhahdaa has he beenta dhexdooda ama have iyo beenta dhexdooda waa inuu galaa subject waa inuu galaa sidaas slide-ka noogu xusan uu leeyahay has he been playing a ball until 2 hours. miyuu asagu baa ciyaarayay kubadda ilaa 2 saacadood. has he been playing a ball until 2 hours. miyuu isaga ciyaarayay kubadda ilaa 2 saacadood. diidmaan ka dhigno maxaa lahaa he has not been playing a ball until 2 hours. isagu ma ciyaaraynin baa la yidhi kubadda ilaa 2 saacadood. he has not been has iyo been kana dhexdood waa inuu galaa not waa inuu galaa negative waa inuu galaa lama dhigi karo he has been not ma la dhigi karo waa qalad iyadana oo has iyo beenta ama have iyo beenta dhexdood waxaa galaayo negative ama not-ka ayaa galay oo waxaa lagu dhawaaqaa he has not been playing a ball until 2 hours. isagu ma ciyaaraynin kubadda ilaa 2 saacadood. ka dhigna su'aal diidma is wadata oo maxaa lahaa hasn't waxaa la dhigaa qaab short form waxaa jirta long form maxaa waa ina dhaadid waa has not inaad dhamaystirto laakiin short form isticmaal waxaa leedahay has de slash de not de marka dhexgeli oo maxaa la hasn't allah marka waa la soo gaabina waxaa la hasn't he been playing a ball until 2 hours. so miyuusan isagu dheelaynin balla kubadda ilaa 2 saacadood. Okay, example kale wuxuuna leeyahay they have been learning English for 6 months. they ayagu baa la yidhi have been learning waxay baranayeen Englishku for 6 months. 6 bil ayay baranayeen baa la ayagu Englishku waxay baranayeen 6 bil baa la they ayagu have been learning waxay baranayeen Englishku for 6 months. 6 bil bay baranayeen baa la. Okay, taas u aad affirmative ama present ahead aan ka dhigna question maxaa la have tele banaanka bixi auxiliary la banaanka bixi maxaa la have been day ma la dhigi karaan sax marka maxaa la have iyo been dhexdooda waa inuu galaa subject waa inuu galaa
saas awgeeda marka slide kan u argayna uu leeyahay have they been learning English for 6 months miyuu ayagu baranayeen Englishka 6 bilood baa la have they been learning English for 6 months miyay ayagu baranayeen Englishka 6 bilood baa la did ma gadig they have not been learning English for 6 months ayagu ma baranaynin Englishka 6 bil they have not been learning English for 6 months ayagu ma baranaynin Englishka 6 bilood su'aal jid mooda ka dhig macallaa haven't they been learning English for 6 months marka fiirintan sanad wuxuu noo cadeynaa guud ahaanba wuxuu ka hadlaa dhaanay sida aan soo sheegnayba fal dhacaayay wiilina socda wuxuu ka hadlaa fiirintan sanad fal dhacaayay wiilina socda oo ka hadlaa auxiliary ahaan formulas noocan soo sheegnay subject plus have been / has been plus verb plus ing plus object aan dhahnay adverb of time waxa waaye waa since waa adverb of time maxay tahay since until mayin adverb of time waa adverb of time waxa waaye yesterday adverb of time waa tomorrow adverb of time waa every day waxa waaye adverb of time waa until since waxa waaye when mayin adverb of time waa marka auxiliary ahaan wuxuu ku shaqeeyaa has iyo have ku shaqeeyaa has been iyo have been ku shaqeeyaa has waxa ku shaqeeyaa kuwa singular ka ama adi aalayn kuwa pronoun ama hada aalayn kuwa noun have waxa ku shaqeeyaa kuwa jamaca ku shaqeeyaa sida they oo kale I oo kale we oo kale kuwaas waxa ku shaqeeyaan have been ku shaqeeyaan marka magtaanka guud ahaan baad soo gabin waxa waaye wuxuu ka hadlaa fal lacaayay wiilina socda marka saxaabta cashirkeen halkaas ayuu ku egyahay sidaan ni sheegay ba channelku waxaan dhawaa channel cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato ama aad aragto channelkani fadlan subscribe share like inta badhaga noogu si adigana aad uga heshid cashiro iyo grammar iyo tennis iyo practicalba oo adiga ku xiiso geliya